السلام عليكم كلنتها بوندا ودالد الهانتيم با waxaad ku soo dhawaataan qaybtii sagaalaad ee taxanaheeni ayaan daran sheekadan waxa qoray Dr. Cabdullaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag qaybtana waxay ku bilaamaysaa sidan Xarbi markuu isku dayo inuu ku adkaysto fikiradiisa uu jecel yahay oo ah in uusan sina asli uga harin waxa uu muuqda isaga oo la deeshay oo hooyo macaan iyo aabihiis ay kala tageen Xarbi waad moodaysid inuu safar dheer soo galay oo wajigiisa laga akhrisan karo daal naxdin iyo murugo ayaa soo galay gurigii asli markuu fadhiistay ayuu hoos u foorarsaday asli oo naxsan ayaa intii ku soo booday oo madaxiisa kor u soo qaaday ku tiri abbowe macaane Xarbi maxaa kugu dhacay markii Xarbi madaxa kor u soo qaaday waxa indhihiisa qoysay ilmo asli waa ishayn weyday waxayna bilowday in ay oydo iyadoo u malaynaysa in Xarbi dareen wad loo soo sheegay Xarbi oo hiraagaya ayaa yiri adduunyada nin joogow maxaa aragtay ku laaban asliyay maanta arrin waxay joogtaa in aan labadeenu kala hadhno ama laydeysho wuxuuna intaas ku daray ereyadii ay isweydaarsadeen isaga waalidkiis iyo go'aankii gudida ka koobnayd aabihiis awowgii adeeradii iyo eedadii waxaana isaga iyo asli dhex maray doodan asli waxaan si cad ugu sheegay eheladay in wax kasta oo dhaca aanan kugu xaddi furayn waxayna isiyeen 24 saac oo aan ku soo fikiro anigaana weydiistay hase yeeshee go'aankaygu waa mid qura labadeennana wad bayna kala reebi kara asli oo sugaysay dhawaan in la arooso asxaabteedii oo dhanna u sheegtay arrintaasi waxay ku ahayd qarraacan waxaana ku soo labakacleeyay cuqdadii waa hore ay ka bogsootay ee ahayd inaan cidna guursanayn naag cunug aan aabe lahayn dhashay Xarbi intuu asli u soo dhawaaday oo garabka gacanta ka saaray ayuu ku yiri asli maxaad isu calool xumaynaysaa horaan kuugu sheegay in aanan marnaba talada waalidkay yeelayni Xarbiyow laba qof oo caqli leh baynu nahay khiyaali iyo dhalanteed inaan ku noolaano ma aha aniga waalidkay waa hore ayay deyrsheen adigana haddii aad i dooratid waa lagu dayrinayaa waa in aan darisnaa nolosha iyo farxadda ay heli karaan laba qof oo la soo deyshay oo kulmay asliyay anigu nin shaqaysta oo ku kafaalo qaadi kara ayaan ahay adiguna wad shaqaysataa maxay dayray naga dhimaysaa Xarbiyow anigu waan kaa waaya aragsanahay qofna looma dhaamo waalidkii xiriirka waalidnimana waa in uusan go'in bal qabso haddii aan maanta labadeenna oo dayro ahi isguursanno ilmaheennu xaggee bay aadayaan yaa awoowe ayeeyo habar yar adeero iyo abtiyaal u noqonaya mise waxaad rabtaa inaynu labadeennu goodoon ahaano maxaad asliga arrintaa ka wadaa Xarbiyow waxaan ula jeedaa in derbi weyn layna kala dhex dhigay wadajirkeenniina khatar ku sugan yahay anigu marnaba yeeli maayo in lagu deysho waan jeclaa in riyadeenni dabowdo waan rabay inaan aqal galno qorshaheennina fulo hase yeeshee arrintaad ii sheegtay iyo xaalku halkuu marayo wax la dhayeelsan karo ma aha sidaa darteed anigu waxaan kugula talinayaa in aad gar iyo gardarro yeeshid talada waalidka oo asliyey ma inaan kala tagno ayaad ku talinaysaa Xarbiyow waxaadan u jeedin baan arkaa waxaa ii sii muuqda dhibaatada aan la kulmi doono haddii innagoo dayro ah aan isguursanno waxaan ka fakarayaa 10 sano 20 sano kadib waxa dhici doona asli waan garanayaa halka aad ka walwalaysid hase yeeshee waa in aan u adkaysannaa waxyeello kasta oo ina soo food saarta waxaanay aniga ila tahay in aan guddoonno dayrinta waalidkay intii xiriirkeennu go'i lahaa Xarbiyow intii ay go'i lahayd gacaltooyadii waalidku waxay ila tahay in aan kala hadhno oo keenu go'o Xarbi iyo asli muddo 3 saacadood ah ayay murmayeen aslina waxay ku guuleysatay in ay Xarbi ku qanciso in uu tawaalidkii yeelo iyadoo tabsiisay dhibaatada sugaysa haddii la deysho waxayna isku waafaqeen in Xarbi dib ugu noqdo waalidkiis uguna bishaareeyo inay asli kala hadheen Xarbi markuu baxay waxay asli ku tiri Xarbiyow amarkaas sidaa wax yiri maanta iyo wixii ka dambeeyana walaalkay baa tahay iloobina maayo dabcigaagii wanaagsanaa iyo sidii aad ii dhowri jirtay nasiibna waxaa leh haweenayda aad guursan doontid
cid aan adiga ahayn guursan maayo, waalidkay waxay ka helaan bay leeyihiin doobnimadayda. Asli markii Xarbi ka baxay ayaa waxaa ku soo kacay naxdintii ay qarinaysay intii uu la joogay. Sariirtii ay intay ku dhabacatay oo himbilowday, waxayna dhowr saac kadib soo kacday iyadoo leh rafaadkaas oo dhan aniga isugu wacnaa, bal rag iyo mashaakilkii waa tii aan eedee maan iska daayo. Asli waxay nafteeda la doodaba ugu dambaystii waxay go'aan ku gaadhay in ay dul qaadato oo halganto inta ay ka helayso nin aan mushkilad ku furayn. waxaase maskaxdeeda ku soo duxayay fikradaha ah oo sawragga oo dhami Xarbi oo kale ma aha, ma nin aan waalid lahayn ayaa la helayaa, sawse waalidiintoodoo dhami isku mid ma aha, mase la helayaa waalid Soomaaliyeed oo aqbala in ay inankooda u guuriyaan gabadh cunug aan aabbe lahayn wadata. fiidnimadii Asli waxay soo aaday gurigii Faadumo oo Asli hooyadeed oo kale ahayd, iyaduna aad ugu kalsoonayd, talo iyo tilmaan mar kasta ay ka raadsan jirtay. waxayna u sheegtay waxa kala qabsaday iyada iyo Xarbi iyo cadaadiskii xagga qoyska uga yimid Xarbi, waxayna isweydaarsadeen erayadan. eedo macaan waxaan kuu sheegayaa in aan kala tagnay oo kala faataxaysanay Xarbi. waxaa dhacday wixii aan ka cabsanayay. Xarbi waalidkiis waxay ogaadeen xaqiiqadii, waxayna ku adkaysteen in Xarbi iga hadho, iyagoo u qaatay mar haddii cunug aan aabbe lahayn aan leeyahay in aan qof xun ahay. runtii Xarbi aad buu ugu adkaystay in aan wada jirno, wuxuuna waalidkiis u sheegay inuusan sina iiga hadhin. hase yeeshee anigoo tixgelinaya duruufta jirta iyo mustaqbalka dambe, waxaan go'aan ku gaadhay in aan aniga iyo Xarbi kala hadhno, sababtoo ah laba dayro ahi nolol raaxo ah si ay ku dhisaan waa dhib badan tahay. Faadumo yaab iyo amakaag ayaa ka soo hadhay, waayo waxay wax kaga jirtay qabanqaabada arooska Asli. marnaba ma filayn akhbaarta Asli u sheegtay, waxayna tiri, Asli ma runbaa waxaad sheegaysaa mise aniga aad igu ciyaaraysaa? waa yaab oo kala tegiinu sahlana, maxaadse iila tashan weyday oo keligaa go'aanka degdega u gaadhay? wallaahi eedo, arrinta oo dhan ayaa kadis ahayd, waxaanan filayn ayaan la kulmay. Xarbi oo ilmaynaya baa ii yimid, waxaan sameeyey ayaan garan waayey markii uu ii sheegay in waalidkiis dayrinayo haddii uusan idhaafin. anna waxaan goostay in intii Xarbi oo ah nin waalidkiis jecel la dayrin lahaa anigu aan iska samro, waayo waxaan si fiican ula socday sida Xarbi iyo waalidkiis isu jecel yihiin, mana doonayo in aan sabab u noqdo kala tagga isaga iyo waalidkiis. Asli waxay u sheegtay eedadeed Faadumo go'aankii ay qaadatay oo ah in ragga oo dhan ay faraha ka qaado oo ka hadho. Faadumo intay qosashay ayay tiri, oo Asli ma waxaad doonaysaa in aad soorooyinka kiniisadaha jooga oo kale noqotid? eedo, samir iyo iimaan yeelo, niyaddana ha iska xumayn. haddii aad ku sii wadid asluubta aad leedahay, mujtamacii awal kuu haystay dambiilaha wuxuu qadarin doonaa in aad tahay gabadh dhowrsoon. waan hubaa Asli haddii aad ku socoto waddada wanaagsan ee iminka aad haysid inaad heli doontid ninka niyadda aad ka jeceshahay. Asli iyo Faadumo waxay galeen sheeko dheer oo ku saabsan ragga iyo isla weynida waalidka oo doonaya in ay ubadkooda rabitaankiisa iyo dooqiisa ku xadgudbaan, iyagoo ku sanduleynaya ilmahooda waxaanay doonayn. Faadumo waxay uga sheekaysay Asli taariikhdii guurkeeda, waxayna tiri, maalin maalmaha ka mid ah anigoo gabadh ah oo sanadkaygu 15 jir yahay ayaa waxaa ii yeedhay aabbahay, wuxuuna ii sheegay in uu igu daray ninkaas oo aan hore u aqaynay, gabdhihiisana saaxiibo ahaan jirnay. waxaa la odhan jiray Diiriye Gaafaa. intii hadalkii aanay dhammayn ayay Asli tiri, oo eedo Faadumo, ileen xaajiga iminka ku qaba nin kale kaaga horreeyey. iga aamus Asli aan sheekada ku dhammaystire. Diiriye Gaafaa wuxuu ahaa oday awowgay ka weyn oo aan ku maadsan jiray, wuxuuna qabay 2 naagood, ilmihiisa ayaana ilmo sii dhalay. markii aabbahay arrintaa ii sheegay waan ooyay oo qayliyey. waxaan u sheegay aabbahay in aanan Diiriye Gaafaa doonaynin. aabbahayse wuxuu yidhi, maandhey, nin ku dhali kara ayaa ku dhiqi kara. wuxuuna ii sheegay inuu waa hore i bixiyey, xaalkuna uusan baryo joogine ee aysan dulle ku raacayso ninka la siiyey. alla naxdin badana eedo Faadumo see yeeshay. Asli bilaayaba waa ta dambayse markaan diiday intuu aabbahay soo qabtay ayuu xubintan taagaba i jabshay, anigoo xidhxidhan
ayaa la ii keenay Gaafa, isna waa isii dilay markaan 6 bilood xabsi ku jiray oo aan murugo iyo musanow ku noolaa oo matadiina ka go'ay oo aan qori qallalan noqday ayaan maalin xoolihii wax ka soo arooriyay magaaladiina imid. aniga iyo gabadh uu dhalay Gaafa ayaana la yiri sonkor soo gada. waxaana magaalada degnayd habaryartay. gabadhii intaan gurigii habaryartay fadhiisiyay ayaan intaan ka dhuuntay baabuur xamar markaas soo aaday soo raacay. oo eedo muxuu dabadeed Gaafa sameeyay? muxuu samayn lahaa? aabbahay baa xamar iigu yimid wuxuuna ii sheegay inuu Gaafa ka qaatay 20 halaad oo yarad ah haddii aanan ku noqonna geelii laga ceshan doono. si kastaba iila hadal aabbahay hase yeeshee waan diiday oo waa la ii soo marsin waayey in aan dib ugu noqdo. aabbahayna markuu iga quustay intuu ii habaaray ayuu iga tegey. Gaafa waa diiday inuu ii furo hase yeeshee nasiib wanaag 5 sano kadib ayuu geeriyooday. Faadumo waxay aragtay in ay Asli aad sheekadeeda ula yaaban tahay markaasay tiri Asliyey geel 2 jir soo wada mar. markaasay waxay raacisay horta Asliyey xagee bay ku dambeysay saaxiibta Canab mase la guursaday. eedo yaa taas guursanaya waxa la ii sheegay in ay wiil dhashay imikana ay uur kale leedahay. waxayna fariin ay ii soo dirtay la iigu sheegay in ay East Africa aad ugu rafaaday lana kulantay gaajo darxumo iyo dacdarro iminkana ay doonayso inay ku soo noqoto xamar. oo maxay xamar ka soo doonaysaa oo ka yaala markii horeba waa tii sii dhigdhig lahayd oo dalkaaga joog laga waayay. Faadumo waxay Asli u sheegtay in ay berrito aadayso gabadh ay dhashay oo Xabiibo la yiraahdo oo ka mid ahayd gabdhihii loo diray ololaha horumarinta reer miyiga joogtana tuulo la yiraahdo Guryahow. eedo marka hadda xigta aad baxaysid ii soo sheeg waxaan doonayaa in aan soo arko ololaha horumarinta reer miyiga. eedo tuulada Guryahow xagee ku taal? waxay ku taalaa meel u dhow degmada Qoryooley. marka dambe ee aan aado ee aad i raacdid ayaad soo arki doontaa haddii Alla ka dhigo. Faadumo waxay Asli u sheegtay in tuulada gabadheedu joogto ee Guryahow ay tahay meel barwaaqo ah oo dhinac kasta beero kaga xiran yihiin. Asli baa hadalkii qaadatay oo waxay tiri eedo maalin dhaweed waxaan warqad ka helay gabadh aan isku dugsi nahay oo macallimad ka ah tuulada magaceeda la yiraahdo Gumurta ee ku taal degmada Baraawe. waxayna ii sheegtay in halka ku aragtay maroodiyaal libaaxyo iyo bahalo kale oo tiro badan. Asli waa runta oo gabdhihii yaryaraayay markay guri 2 tallaabaha aadayaan oran jiray waanu baqaynaa cidna kaxaysa halaan ugu daro. waxay yeesheen karti iyo geesinimo. waxay maamulaan beelo dhan. waxaan arkay iyagoo habeenbarkii gudaya oo karbuunooyin wata. dhowaan markaan Xabiibo u tagay waxaan ka yaabay gabadhii shimbiraha ka didi jirtay oo keligeed hawo jiq ah dhex qaadaysa. eedo Faadumo saaxiibadahay oo dhammi ololaha ay aadeen waxayna joogaan tuulooyinka iyo baadiyaha degmada Baraawe. aniga iyo dhowr gabdhood oo kale oo shaqeeyo ayaa ka soo hadhnay. Asli iyo Faadumo muddo 2 saac ay sheekaysanayeen wuxuuna waqtigii kaga dhamaaday qosol iyo farxad. Asli saacadii bay fiirisay waxayna aragtay inay waqti dambe tahay markaasay tiri eedo Faadumo anoo murugaysan ayaan kuu soo galay iminkana wixii mushkilad ahaa oo ay haystay waa iloobay anoo faraxsanna waan ka baxayaa. markii Asli damacday in ay dhaqaaqdo ayaa waxa gurigii soo galay Dr. Axmed oo Faadumo isku meel ka shaqeeyaan. waxaana durbadii la isbaray isaga iyo Asli. markii Asli baxday Faadumo iyo Axmed waxaa dhex maray hadalladan. Faadumo Aslidan matii aad igu wareerisayba mise waa mid kale? wallaahi Axmedow waa iyadii sidaan horeba kuugu sheegay weli ifka intii aan ku noolaa ima soo marin gabadh la mid ah. dabci wanaaga asluub wanaaga caqli iyo miir bay isku darsatay. weli ma la guursaday. Axmedow waan ka xumahay gabadha ayaan darro ayaa haysa. ninkay muddo dheer isla socdeen ee aan filaynay kulligayo in ay dhowaan aqal galaan waa kala tageen oo maxay isku qoonsadeen. waa taqaanaa waalidka waqtigan jooga sida ay u badan yihiin. waxay ku dhegan yihiin dhaqan waa hore laga tegay. waxayna ilmahooda ku jujuubayaan cidda iyagu ay rabaan ee ma tixgelinayaan jacaylka Asli iyo Xarbi iyagoo israba baa khasab la isugu diiday. sorry waan ka xumahay. Faadumo Asli oo kale in sida loola dhaqmo. waxay hadba Faadumo iyo Axmed isla jeexjeexaan mashaakisha bulshada iyo arrimaha guurka. waxaa Faadumo ugu dambeyntii talo ku soo jeedisay in Dr. Axmed iyo Asli si fiican isu bartaan kadibna arrin guur qorsheeyaan. Axmed aad buu la dhacay hindisihii Faadumo wuxuuna yiri
Faadumo waxba kama qabo cidna ma diidi karto gabadha Asli ee leh astaamaha mucjisada ah ee aad ii sheegtay. Faadumo oo aad ugu riyaaqsan ereyada Axmed ayaa tiri walaal Axmed Asli waan ka jecelahay gabadhayda Xabiibo haddii mid isii aad ii oran lahayd Asli ayaan ku doori lahaa waayo waxay diyaar u tahay in ay hanato ninkeeda iyo ilmaheedaba. Markuu Xarbi gurigiisii ku soo noqday wuxuu aad ula amakaagay sidii sahlanayd ee ay isaga iyo Asli u kala tageen waxaana maskaxdiisu mashquul ku ahayd Asli iyo wanaageedii wuxuuna soo xasuustay erayadeedii iyo goobihii kala gedisnaa ee ay ku caweyn jireen wuxuuna naftiisa ku hiifayay oo ma sidaasaan Asli kaga samraa. Habeenkii oo dhan Xarbi ma seexan waxaana dul saarnayd quwad ka xoog badan oo u diiday in uu lado. Quwaddii jacaylka ayaa ku dul habsatay. Maalintii dambe ayaa Xarbi oo fakaraya waxaa si kadis ah ugu soo gashay Nuuriye Cilaamato oo ahayd tii ciddoo dhan isku dirtay. Cilaamato Xarbi hooyadii ayaa eedo u ahayd. Xarbi lama socon in Cilaamato fidno wala tahay sababna iyadu u ahayd kala tagga isaga iyo Asli. Markii guriga soo gashay iyada iyo Xarbi waxaa dhex maray erayadan Xarbi oo iska waran waan ka xumahay murugadaada mahadsanideen abti waxba ma aha. Xarbi waan ka wareeray inaad Asli kala tagteen oo lagugu khasbay inaad ka hadhid. Asli isku dugsi baan ahaan jirnay si fiican baan u aqaanaa ma aha Asli qof istaahesha in la xumeeyo waa dad aan fahmin qiimaha jacaylka. Waxay la tahay inay gabadhu haddii ay dhashay cunug aan aabe lahayn ay u dhammaatay. Mutaasif Xarbiyow annaguna waxaan isu diyaarinaynay in aanu idin mashxaranno idinkuna waa kala tagteen. Cilaamatoy haddii sida aad wax u fahmaysid dadkoo dhami wax u garan lahaa mujtamaca dhexdiisa dhibaato kama dhacdeen. oo Xarbi imika maxaad damacsan tahay? Maxaan damacsanaan lahaa jahwareer baa igu dhacay. midda kale Asli aad baan u jecelahay la'aanteedna farxadii iima jirto haddii aan Asli waayana haween dambe shaqo kuma lihi. Ereyadaas Cilaamato aad bay uga naxday waayo waxa ay la socotay in Xarbi waalidkiis rabaan in iyada iyo Xarbi ay isku daraan. intaas kadib maxaa dhacay la socda wada qaybta inoo xigta qaybteena maanta sheekadana waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag.